markana magaalada Jowhar shirkadda maalgashiga ka shaqeysa ee sarafka lacagaha habka online-ka ugu sarafta ee Barako ayaa maanta xarun cusub waxa ay ka furatay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. Wariyahayga Ibrahim Cali Nuur ayaa warka inoo soo diray. xaruntan cusub ee shirkadda maalgashiga Barako Online Trading ay ka furatay caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ee Jowhar ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe kan degmada Jowhar iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan Jowhar. shirkadda Barako oo ka mid ah shirkadaha maalgashi ee ku shaqeeya sarifka casriga ah ee lacagaha qalaad qaabka online-ka ee loo yaqaan forex ayaa dadka reer Jowhar waxyaabaha ay ka heli doonaan waxaa ka mid ah maalgelin faa'iido badan leh. Ibrahim Xasan Barxo waa maamulaha shirkadda Barako Online Trading ee magaalada Jowhar wuxuu sharaxayaa waxyaabaha ay bulshada u qaban doonaan. shirkadda Barako Online Trading waxay ka shaqeysaa maalgashi lacageed oo la yiraahdo forex. shirkadda Barako laanteeda Jowhar waxay dadka reer Jowhar u ballan qaadaysaa inay maalgashigooda lacagtooda ay ilaalin doonto iyadoo ku shaqeyso qaab islaamiya. waxaan ballan qaadaynaa in aan bixin doono insha Allah boqolkiiba 40 ilaa haddii Ilaahay idmo. shirkadda Barako waxaa ugu yar oo lagu maalgashan karaa $500 ilaa $100,000 qof walba wixii uu awoodo. sidoo kale waxaa hadal soo dhaweynaha goobta ka jeediyey bulshada ka soo qayb gashay furitaanka xafladda ee shirkadda Barako ee magaalada Jowhar. waana faa'iido boqolkiiba guriga aan ku qaado kuligeena ma soo maray ma doonana dibka loo diro lacagna meel hada lacag ma helayna waxaan soo xalay ugu leeyahay dawr laga dhib ma qada laga dhib ma guriga ku naqay xabada bil ma qada lacunay waxaan isleeyahay waa wax aad u fiican in magaaladeena inuu imaado. waxaan leeyahay faa'iido badan oo ah gabdhihii inay ka faa'iideystaan odayaasha ma dhahay wiilasha laakiin gabdhaha dahab ku xareysan yahay inay dahabkooda gartaan meelo isaga guraan dahabka inay ka faa'iideystaan ay ku darsadaan. dhinaca kale duqa magaalada Jowhar Saalax Muudi Cali iyo xogayaha guud ee maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Abshir Ibrahim Maxamed ayaa hadallo soo dhaweynaha goobta ka jeediyey. marka haddii aan reer Jowhar nahay dhaqaale aan rabno qaabka u raadinaynaa marka waxaan leeyahay soo dhawaada haddii aan nahay maamulka waa idin soo dhaweynaynaa. Barako waxaan leenahay baraka Allah ku siiyo. marka meeshan faa'iideyna ku jirtaan u maleynaa Ibrahim Xasan Barxo oo ah niga gambanigan hogaamiyana aniga xaafadan iskula dhalanay xaafadan iskula soo barbaarnay inaan si fiican u aqaano waayay hadduu gadaashii xumaadana ugu xoogaa inta luuq oo galay maaragtay barnaamij oo leeyahay faa'iido badan oo ku helayna maaragtay reer Jowhar Ilaahay ka badbaadiyo Allah. Ibrahim waa kula talinaa insha Allah taala garabkaaga taaganahay. ugu dambeyn waxaa hadalka soo xiray kusimaha gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Cabdi Sheekh. anaga aad u soo dhaweynaynaa ka maamul ahaan waxaana leenahay dhammaan reer Jowhar waxaan rabnaa inay ku dhiiradaan ay maalgashtaan waxay marka hore maalgashan jireen dadaysa aqoonin inay inta ka baxaan xamar aadanay wax walba soo qabsan jireen hadda waxaa loo keenay gurigoodii ayagoo gurigoodii jooga waxaan rabnaa insha Allah inay shirkaddan Barako nin mas'uuliyadiisa qaadi karaa Ibrahim la yiraahdo hawsha wado waxaan rajaynaynaa inaad ku kalsoonaan doontiin waxaan soo dhaweynaynaa inaan si dhow ula shaqayn doonaa hadduu Ilaahay yaraa. Ibrahim Cali Nuur TV-ga Universal caasimadda Hirshabelle Jowhar.